بسم الله الرحمن الرحيم waxaan joognaa helay baag aad iyo aad u qurux badan ma sha Allah oo loogu tala galay dalxiisayaasha maanta waxa u yeeshay nasiib helay iyo mataanaynta boorame annaguna aanu ka soo qayb galay waxaan ugu hambalyeeynaa boqolkiiba boqol waxaan u hambalyeeynaa inamadii soo qaban qaabiyay iyo dhammaan dadweynihii ka soo qayb galay aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum
كشفها عرايون بسم الله صلى الله عليه 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 نسيك نصر عليه نصر عليه نسيك نصر عليه نصر عليه كشفها عليه كشفها عليه كشفها عليه كشفها عليه سيدادو كان اللواي الولاقي ولاني من هلين هلوي الولاقي ولاني من هلين هلوي واتا يدي ولا واتي سمتا واتا يدي ولا واتي سمتا حقو 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 هيك هيك وكا يو يوالو يوالو سيدادو كان اللواي سيدادو كان اللواي بوربوراي أبو شيء ميتيني بوربوراي أبو بالبوساتي بوربوراي أبو شيء ميتيني بوربوراي أبو بالبوساتي بوربوراي ولا نبغى حقو 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 هيا هيا وقع عروسي 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 تبحث سعدني يسوي لك قدبونا سوبنا ونبيو سلام باو الرئيسة هل إذا قروح ذا مدلي السلام عليكم هدان سيارة دافو رولو فرس كيغو مركا كابولا شهديو
تراكينا إنتان هايتا وداغنو إنتان هايتا وداغنو وحيهيني يحويا إنكان انت حريرها دونيده كيبويه كلابن هلو ما هاي واركوان هيستا وداغو حداقيني يلوقتا حبسا موضقا كينا سوماليدا هلقا ميسا هلو ما وان هوي وضا مانتا جوغنا إيو هلي شعب كيدنا هلو بالي الله هلو وهم هبوي ملها وان هب سامية هبوي ملها وان هب سامية ملها وان هايبيني وهسا وان سو حقاجيني وان سو هجي حقاوتم وبرتينا بتيدا وبقعدي البحيرة اللي يا بورماي اللي يا بورماي اللي يا بورماي اللي يا بورماي بلياني اللي يا بورماي البلياني دي اللي يا بورماي يا بورماي بدنينا وبركيجي رابطة وبرتينا بدينا وبوعدي البحيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعيقو وسليبان قري ما أنت وحن كقيب قلي حفلتي هنلي بورما كميستو هنلي تيمس وبيجينا واكن أكتيدا وحويا فرحد آذو قروح بدن إيفنتس في عن أيانو كقيب قلني وحن سود ويننا متانها هنلي يبورما waxaan ku faraxsanahay inaan reehinle iyo reebuurma maanta laabta isku saarno isku ognahay inaynu xidhiidh saaxiibtinimo oo walaaltinimo ay naga dhaxeeyo waxaan isku ognahay inaynu xidhiidhka xoojinno kor u sii qaadno ka muuqanno si ay inoogu daydaan ummadaha kale ee magaalooyinka kale waxaan nahay dadkii ugu horreeyey ee tusa hadday Soomaaliya tahay iyo hadday Afrika tahayba inaan xidhiidh saaxiibtinimo la samaysano wadan ma garanaysaa wadamada hore u maray ah isla markaa magaalada boqortooyada oo Henley Thames waa qaybta boqortooyadu ay ka degto wadankan Ingiriiska sida darteed boormana waxa ay tahay ama igu muuqataa inta maskaxda la saaxiiba iyo aqliga waxa kuma inay heshiiyaan oo isku yimaadaan aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanan maanta ku faraxsanahay anigoo maanta taagan barxaddii weynayd ma garanaysaa Henley Thames marka waan idinku soo dhaweynayaa daawasho wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الرحمن الرحيم أنا فوسي عبد الرحمن ورفا waxaan hadda ku sugannahay goobta Henley baag Henley maanta ka dhacayso xafladda boorama kamisto Henley runtii waa maalin aad u qurux badan shacabka reer awdalna ay maanta halka isugu yimaadeen iyo shacabka kale ee Soomaaliyeed ka yimid gobolada kala duwan ee waddanka UK runtii waxaan halkan uga hambalyeynaa shacabka reer awdal magaalada boorama khaas ahaan caasimadda gobolka awdal iyo shacabka reer Henley ee waddanka UK waxaan leenahay
dhammaantiin hambalyo xidhiirka soo jireenka ee taariikhiga ah ee 1982 soo bilowday ilaa maanta socda sanadkanna aan ka soo qayb galnay waa xaflad socon doonta joogtana ahaan doonta hadduu ilaahay yidhaahdo marka waxaan leeyahay Boorama maanta way ka dhacday waana la soconaa miidiyaana ka aragnay marka waxaan leeyahay reer Boorama hambalyo dhammaan shacabka reer Awdal meel kasta daafaad doonta ku jiro oo hambalyeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala u soo dhaweynayaan u bogaadinayaa waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan reer Boorama oo ku kala nool adduunka daafihiisa sida u dhan yihiin qaaradda gobolka Awdal gaar ahaan caasimadda magaalada madaxda Awdal gaar ahaan magaalada Boorama dhammaan waan salaamayaa tolka ummadda qiimaha badan leh ee walaalaha qiimaha badan leh ee halkan isugu yimiday ummadda aan ahayn reer Boorama ee ka soo qayb gashay Soomaali weyn meel walba ka kala timiday Soomaaliya Somaliland shanta qaaradood ka kala timiday aad iyo aad baan soo dhaweynayaan u bogaadinayaa xafladan waa xaflad aad u qiimo badan oo xoog badan iyo muruq badan la geliyay ma sha Allah Boorama come to Henley bismillahir rahmanir rahiim magacaygu waa Yaasiin Faarax Muuse maanta waxaan ka soo qayb galay xafladan Boorama come to Henley waxa qaban qaabaya dhalinyaro iyo waxgarad aad xirfadoodu u sareyso iskuna keenay bulshada sanad kasta xiriirkan dib u soo nooleeyay waana xiriir muddo dheer soo jiray guud ahaanba ummadda isha ayay ku haysaa gobolada Awdal Salal ilaa Gabiile iyo guud ahaanba ariga Soomaaliland gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo dadka af Soomaaliya ku hadla ayaa aad uga soo qayb gala waxaan u mahad celinaynaa cidii soo qaban qaabisay waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo ka soo qayb gashay waqtigooda qaaliga soo bixisay waxaan jecelahay inay karaamadani sii korodho oo sanadka ka dambeeya xitaa aan magaalooyin kale oo saaxiibo banaalan aan u sameeyno gobolada gaar ahaan gobolka Awdal وانا حفلة سفي عن لوسو أبابلي حق الدقنكا حق فنانينتا حق odayaasha iyo dhinac walba oo ay bulshada Soomaalidu ka kooban tahay ama bulshada Soomaaliland ka kooban tahay ayaa la iska keenay martiqaad fara badan oo dunida ka kala yimid ayaa ka soo qayb galay si marka waxaan jecel lahay in halka hawshu ka sii socoto gubaabo weyn iyo guulna waa la garab taaganahay ilaa idinkii waxaan rajaynaynaa sanadka ka dambeeya inuu community-guna sii balaadho wax qabadka community-guna uu kor u kaco wayna ku mahadsan TV-yada iyo dhammaan warbaahinta oo ka soo qayb gashay iyo guud ahaanba ummadii sharafta leh ka soo qayb gashay anuga mahad celinaynaa waqtigooda qaali ah oo soo qudhaanay camiraan gogasha iyo wax qabadka Boorama come to Henley oo muddo dheer soo jirtay waxaan rajaynaynaa inay ka soo bixi doonaan waxyaabo aad u faafo oo waxtarna u leh labada dhinacba aad baan u salaamayaa dhammaan ummadii ka soo qayb gashay qaban qaabiyaasha waa mahadsantiin waa Yaasiin iyo mar labaad شرفت لي ماشان اسكو تيميداي waxaan ka soo qayb galnay xafladii Henley mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leenahay Henley baan iskugu nimidnay waxaan leeyahay waa la enjoy gareeyay fanaaniin badan baa timiday si fiican bay noogu dhacday alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan leeyahay dadka ka soo qayb galay oo dhan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa weeyaan Boorama come to Henley waan ku qasbanay sanad walba inaan nimano we enjoy year kasta oo nimaadnaba ma sha Allah aad baan ni wada salaamaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلامي دمانتين مقعي وعاشة سليمان عبدي وحن سلامي أوروركا سامسون iyo dadka ka soo qayb galay iyo TV-yada alxamdulillah si fiican bay u dhacday si wanaagsan bay u dhacday dhammaantiin reer Boorama intay daawanaysa inta magacayga taqaana aad baan u hambalyeynaa leh bismillahir rahmanir rahiim maanta waxaan joognaa Henley magaalada mataanaha ay Boorama yihiin waxaan ka yimid Belgiga anoo Cabdulfataax Umar Cusmaan waxaan ugu mahadinaynaa dhalinyartii iyo asxaabtii soo qaban qaabisay arintaasi quruxda badan leh farxad bay noo tahay inaan nimaadno nigala qayb galno waanan ku faraxsanahay waxaan leenahay xiriirka Henley iyo Boorama hasi dheeraado hasi qurux badnaado sidaaya si ka badan inay ka qurux badnaato baan rajaynaynaa insha Allah sanadka damba hadduu alla yiraahdo iyo sarag damba بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أنا هو سعاد آدم عبد الله كترسن أورد كسم صوني برمجان جديد سكوتشرة ما شاء الله سفي عم بينقود عضي إن حفلة آد بينقود عضي سبيس بدن بلنسية فنانين تي
kuwa Soomaaliya reer Djibouti looma kala hadhin ma sha Allah hidiyo dhaqankii baa la ciyaaray ma sha Allah waaba intaan imanayaan sanadkii ugu fiicneed baan oran karaa imika sanadkii saddexaad baan sameeynaa Samson waa sanadkii aad ugu ballaadhnay meel space aan helno muxuu ahaa maayar ku-xigeenkii baa nagala soo qayb galay oo hadda iyo maayarkii Henley waxay wada raaceen boodka ما شاء الله وسندكي آد ugu wanaagsanayd gabar kale oo maxay maayarka Finland ayaa iyadana safar noogu joogtay marka ma sha Allah si fiican bay nagu dhacday aad baan u masuulnay waxaanan aad ugu mahadnaqayaa dhalinyartii aan la shaqeynay Samson oo hawsha ku jirnay 3 bilood ugu dambeysay aan qofna ladin qofna jiibsan qof walba hawshiisa dhinac ka waday si fiican bay nagu dhacday wixii lagu dadaalo macaashkeegana waa la helaa wassalaamu calaykum waan salaamay deeriyaadna ku salaamay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد أنا مصطفى داو الشيخ حسن كنا هذا يافك بالشوينته كنا ودن كيوك يورك سمسون بمهد علينا يورك سمسون وحنا كانوا بمهد علينا يا برشة كسر قريب كشيء دمان إذا شرفت لو كسر قريب كشيء يا دمان بالشوينته الرير هلي وصفي عنه سودوية يعني مهد كانوا بمهد علينا يا أنا قاعد هذا يافك مقالة لستر شهلية الرير لستر الرير أفضل ما قاعد قاعد هذا waxaan halkan markaa si fiican baan noogu soo dhaweeyay xafladina si fiican bay noogu dhacday waxaan halkan uga mahad celinayaa bulshada Hilli ku nool rag iyo dumar iyo dhalinyarada soo abaabusheeba waxa kale oo halkan uga soo gudbinayaa dhammaan salaan sharafeed bulshooyinka reer Awdal khaasatan magaalada caasimadda ee Boorame magaalada aan ku dhashay Boorame marka halkan waxaan uga soo gudbinayaa hambaliyo reer Boorame idinkuna markiina inaad u diyaar garowdaan saad reer Hilli u qaabil lahaydeen ayaa la idinka sugayaa reer Hilli si fiican bay noo soo dhaweeyeen sharaf leh idinkana reer Booramo waa la idinka sugayaa soo dhaweyntaas oo dhinta iyo abaalgudkiba waa la idinka sugayaa u soo diyaar garooba aad iyo aad baad u mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحيدين موسى عبد الله حقا وحن همبليو نسوكو بك نقدر يا رئيس سامسون رئيس بورما رئيس هنلي دمانتين وحن الله همبلي ومالن خالية سنة كيسة إلهي نبضها نوغارسيو يحفظ كسيوين هذا إلهي نوغارسيو همبليو رئيس سامسون دمان تكسو قيب قلنا آدية بو محسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan dadka halka naga daawanaya aad ayaan u salaamayaa maanta xafladda maan ka soo qayb galnay waxaan ka imanay anagoo dad badana Holland iyo Belgium ayaan ka kala imanay xafladani si wanaagsan bay u dhacday oo si wanaagsan oo loo soo agaasimay waa Henley Boorama waliba waxaan rajaynaynaa sanadka dambe inay ka dhacdo Boorama waayo sanado badan bay ka dhacday London oo halkan ay yimaadeen reer Boorama waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa inay sanadka dambe ay ka dhacdo Boorama insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo maanta waad arkaysaan garoon ballaaran oo weyn baa lagu dhigay way ka baaxad badan tahay intii hore oo waxa aad arkaysaan in dadweynuhu xitaa ay wadano kale oo fara badan ay ka yimaadeen sanad walba sidan ay ka sii baaxad badanaysaa marka waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa sanadka dambana inay maad aragtay ay Boorama ka dhacdo hadii Ilaahay yiraahdo taas ayaan mar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum halkan waxaan ka salaamayaa gobolka Awdal oo dhan gaar ahaan reer Boorame iyo reer Djibouti waa salaam Soomaaliya oo dhan salaamayaa waxaan maanta farxad noo ah annagoo ka soo qayb galay xafladii Hillary come to Boorama oo si qurux badan noogu dhacday shucuurtayda waliba aad iyo aad bay u fiican tahay waxaan leeyahay dadka reer gobolka Boorame ee reer Awdal in ay sida loo weyneeyay dadka kale weyneeyay iyaguna u qiimeeyaan oo u soo dhaweeyaan yaan u soo dhaweynayna waana mahadsantiin aad iyo aad baan u mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد ما تأد بشعورته ذو كحسنتهاي anigoo ah la yiraahdo Axmed Cabdi Ibrahim oo ka soo jeeda jaaliyada community-ga reer Bristol oo u safar dheer u soo galay inaan ka soo qayb galo Boorama come to Henley shucuurteeda aad bay u kacsantahay aadna waan ugu faraxsan yahay inaan maanta dhammaan tolka Samaroon bahweyn Samaroon xajan soo timaado iyo reeraha kale jaarkeenaba ay nala soo qayb galaan xafladeeda aan ku qabsanay luumad Boorama iyo Henley ay ku yihiin mataanaha waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsan yahay dhammaanna waxaan u celinayaa maxamed maayarka oo meel dheer ka yimid iyo waftiga nooga timid Belgiga iyo dhammaan dadka shacabka ka soo qayb galay mahad kale qaar waxaan u celinayaa Deeriye oo TV-geena ah iyo Xamuud
iyo maxamed dhammaan waxaan leeyahay hawl culus baa qabateen hawshaa qabatana ilaahay ni jaasiyo aad baan iyu mahadnaqayaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وولالكين يوسف جامع يوسف ففانا قبل قابيه برنامج كان آدك وقروح دا بدن لي لوغو مقع دريبور مكامستهين لي آدي آد بان ما توقو فرح سنة هاي أنا كو هلا يا أفكي سامسون أورك سامسون وكسوق سوق قبل قابيه ومسؤولك كاها برنامج كان آدك وقروح دا بدن لي وانا سندكii ugu horeysay oon ku qabanno park la siiyay oo Mill Meadow Park la yiraahdo aad iyo aad baan qurux badan u dhacday waxaan u mahadnaqayaa qof kasta oo ka soo qayb galay waxa kale oo u mahadnaqayaa maayir ku xigeenka magaalada Boorama Umar Maxamed Jamcaale iyo fannaankeeni weynaa Cabdinuur Alaale iyo fannaaniinta kale Cali Ciid iyo Cabdirasaaq Wajaale qof kasta oo ka soo iyo qalanjo qadiisha qalanjana aad baan ugu mahadnaqayaa waxa kale oo ugu mahadnaqayaa qaadaco واسنا كسو قيب قلي iyo qof kasto ka soo qayb galay aad iyo aad waxaan leeyahay dhamaantiin ana ku hadlayo magacii Samson waad mahadsantihiin aad baad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Assalamu alaikum. As you can see, I'm at another successful event of Boorama Comes to Henley. It's another year, another successful event. I've had a good day today. I would like to thank the Council of Henley for the hospitality, for allowing us to celebrate the history between Boorama and Henley. As you can see, people are enjoying themselves. Great drink, great food. Hopefully it'll grow stronger and stronger each year. Another thing that I would like to add is people from all over, from Audil to Djibouti to Ethiopia to Somalia, wherever you are. One thing I have to say to you guys is, look at this. Now wake up. Let's come together more often. There should be a better unity between us. You know, just have a good time. Again, I'm hoping to be here again next year, inshallah. And I hope you'll be there as well.